Halkani waa mid ka mid ah goobaha dalxiiska iyo hawo qaadashada loo tago ee magaalada Muqdisho. Waa beerta Daarusalaam ee deegaanka Daynile. Waa goob ay tagaan dalxiisayaasha maxalliga ah iyo kuwa ka midka ah ee qurba joogga ee magaalada yimaada. Waxaa la keenaa caruurta iyo qoysaska maalmaha fasaxa ah. Indhahaagu waxay qabanayaan dhirta cagaaran iyo quruxda ka muuqata deegaanka beerta ku taalo. Intii aan joogay waxay indhahaygu qabteen goobaha dabaasha iyo goobaha caruurta lagu ciyaarsiiyo. Inkastoo qalabka yaalla uusan ahayn mid casri ah, haddana dadku ay ku qanacsan yihiin booqashada goobaha noocan oo kala ah oo ku yar magaalada. Waxaad ku arkaysaa beerta qaybo ka mid ah xayawaanada. Waxaa iga yaabiyey markaan arkay xayawaanka loo yaqaano waraabaha. Guud ahaan xayawaanada ku nool beertan waxaa la dhihi karaa waa kuwo aad u yar tirada iyo noocyada xayawaanka. Hase yeeshee, waxaa lagu tilmaami karaa beertan mid maalinba maalinta ka dambeysa sii koraysa oo sii kobcaysa. Waxaanan arkayay calaamado iyo goobo cusub oo loo diyaariyey isla markaasna muujinaya in dhowaan xerada la keeni doono xayawaanka loo yaqaano libaaxa iyo noocyada kale ee xayawaanada. Inta aad joogto waxaad helaysaa beertan dalxiiska loogu talagalay adeegyada aad u baahato sida cuntooyinka iyo cabitaanada iyo goobo ku habboon in lagu nasto. Halkani waa barta shidan. Halkani waa mid ka mid ah goobaha dalxiiska iyo hawo qaadashada loo tago ee magaalada Muqdisho. Waa beerta Daarusalaam ee deegaanka Daynile. Waa goob ay tagaan dalxiisayaasha maxalliga ah iyo kuwa ka midka ah qurba joogga ee magaalada yimaada. Waxaa la keenaa caruurta iyo qoysaska maalmaha fasaxa ah. Indhahaagu waxay qabanayaan dhirta cagaaran iyo quruxda ka muuqata deegaanka beerta ku taalo. Intii aan joogay waxay indhahaygu qabteen goobaha dabaasha iyo goobaha caruurta lagu ciyaarsiiyo. Inkastoo qalabka yaalla uusan ahayn mid casri ah, haddana dadku ay ku qanacsan yihiin booqashada goobaha noocan oo kala ah oo ku yar magaalada. Waxaad ku arkaysaa beerta qaybo ka mid ah xayawaanada. Waxaa iga yaabiyey markaan arkay xayawaanka loo yaqaano waraabaha. Guud ahaan xayawaanada ku nool beertan waxaa la dhihi karaa waa kuwo aad u yar tirada iyo noocyada xayawaanka. Hase yeeshee, waxaa lagu tilmaami karaa beertan mid maalinba maalinta ka dambeysa sii koraysa oo sii kobcaysa. Waxaanan arkayay calaamado iyo goobo cusub oo loo diyaariyey isla markaasna muujinaya in dhowaan xerada la keeni doono xayawaanka loo yaqaano libaaxa iyo noocyada kale ee xayawaanada. Inta aad joogto waxaad helaysaa
beertan dalxiiska loogu talagalay adeegyada aad u baahato sida cuntooyinka iyo cabitaanada iyo goobo ku habboon in lagu nasto. Halkani waa barta shidan. qaybtii boolboolada waa tan qaybtii boolboolada saan u taalaa bakeelun waxaan kan aaminsanahay adaagilay marka isaa ku tuur wax ku tuurno ish hey waa jiifiyaa saacadan maruu soo kacaya geediska dadka shiitaa la yiraahdaa shabaqaana ku jiraan ninka loo isku malay karo saan u taalaa beerta daarusalaam beerta daarusalaam saan u taalaa Halkani waa barta shidan. Waxaan samaynaa fiidiyoyo ku tusaya adduun ay saxaafaddu ku guuldareysatay in ay soo bandhigto. Waxaan tagnaa goobo inta badan aan la soo bandhigin ama aan la gaarin. Sidoo kale waxaan nahay dad, waxaan la hadalnaa dad. Ma jirto koox, gobol, dal ama dad gaara oo aan col la nahay. Mana jiraan kuwa aan si gaara saaxiib ula nahay. Inta badan waxaan nahay dhexdhexaad. Waxaan soo bandhignaa sheekada, adiga ayay tahay inaad soo bandhigto fikradaada iyo wixii aad ka qabto. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay, subscribe, like and share.